iyadoo qaar ka mid ah shacabka dalkani Norway ay hore u sii dhiibteen codadkooda haddana weli waxaa socda codbixinta meelaha loogu talagalay in lagu dhiibto codadka mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo dadka shacabka ayaana si isku mid ah codadkooda u siinaya cidda ay doonayaan inay u codeeyaan intii aan ku sugnaa goobaha loogu talagalay in lagu dhiibto codadka waxaan kula kulmay Cabdullaahi Cilmi Ibraahin oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka magaalada Bergen kana tirsan xisbiga shaqaalaha oo ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn ee ka dhisan dalkani Norway ugu horeyn waxaan weydiiyay halka ay marayso codbixinta doorashada iyo rajada ay ka qabaan xisbigooda inay ku soo baxaan doorashada hadda socota doorashada iyo ololaha aad bay u socdaan waxa lagu jira 2 isbuuc ugu dambeysay oo codbixinta waxaan rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadii uu qadaro in maaragtay inuu dhamaado 2 isbuuc haddana waxaan ku dadaalaynaa inaan gaarno bulshada Norwejiga dadkii maaragtay wadanka deganay aan wadankoodan u soo diyaarinayay waxa la soo diyaarinayay macnaheedu in sidii looga qayb qaadan lahaa doorashadan oo qof kastaba maaragtay kaaldiisa ugu geysan lahaa marka si wanaagsan ay ku socotaa waxaan rajaynaynaa insha Allah xisbigan inuu guuleysto dirabeed Cabdullaahi oo aan wax ka weydiiyay hadii ay dhacdo in xisbiga shaqaalaha ee uu ka tirsan yahay uu doorashada ku soo baxo waxa u qorsheysan xisbigooda oo qaban doono xisbiga shaqaalaha waa xisbiga maaragtay dan yartaan dhahnaa waa xisbi doonaya in la yareeyo farqiga u dhaxeeya bulshada taasoo ay ka mid tahay in macnaheedu la yareeyo saboolnimada la isku hayo bulshada oo dad maaragtay dadka hantida lana aysan dadka ka tagin oo aysan dhaqaalahooda aysan la fakanin kuwa faqeertinimadana aysan ku raageen macnaheedu saboolnimadii markii inuu xisbigan uu yahay xisbi isku haynaya bulshada oo u diyaar ah inaan macnaheedu la dagaalanka faqeertinimada shaqo abuurka waxbarashada siyaasadda qoyska iyo guryeynta ugu dambeyntii waxaan weydiiyay sababaha ay isdhihi karaan xisbigooda shaqaalaha waa ay kaga guuleysan karaan xisbiyada kale ee ka soo horjeeda ee hadda talada dalka haya waan ognahay dhibaatooyinkii naga soo gaaray garabka midig dhowrkii sano la soo dhaafay 8 sano la soo dhaafay wadanka ay hayeen waxay ahaayeen xisbiyadaas dhibaato badan baa naga soo gaartay guud ahaan haddaan u soo daadegno guud ahaan wadanka oo dhan gaar ahaan haddaan u soo degno ajaanibtiisa galootiga haddaan u soconno muslimiinta iyo Soomaalidaba muslimiinta iyo Soomaalida ay kamid tahay si gaar ah waxa loo tilmaamay Soomaalida waan xasuusanaa in shuruucda loo diiday oo 1600 Soomaaliya laga soo looga yeertay oo loo yeeray oo sharciyada laga laabtay wayna ku midaysnaan garabka midig dad badan baan arkaynaa oo dhahay tusaale ahaan xisbigan KRF-ka ayaan u codeynaynaa way u codeyn karaa qofka xaq u leeyahay cidda u codeynaa inuu u codeeyo laakiin waxaan xasuusinaynaa xisbigaas waa xisbigii ku taageeraya dawladda kama uusan la dhahayn laakiin taageera dawladdaas FRB ay maaragtay markaas wasaaradda cadaaladda ee shuruucda cushanaysa xisbiga ku taageeraya ayuu ahaa marka in qofku uu xasuusnaado wargarabka midig siyaasadooda waan ku rafaadnay wax badan baa naga soo gaaray qaylo badan iyo maaragtay dagaal badan waan la soo marnay sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan ku soo laabanno oo aan helno dawlad ay hogaaminayaan bulooyinka garabka bidix arbada baartida uu yahay macnihii oday oo maaragtay garwadan uu ka yahay xisbiyada garabka bidix sida SB oo kale iyo SB iyo xisbiga rod iyo MDG xisbiyadaas in loo codeeyo oo qof maaragtay uu ku liidado in xisbiyada loo codeeyo garabka bidix ayaan rajaynaynaa insha Allah doorashada xildhibaanada baarlamaanka Norway ayaa ku eg 13 September oo markaa wixii ka dambeeya soo bixi doonta natiijada codadkii la dhiibtay iyo cidda ku guuleysataba bila Maxamed Cabdi wararka doorashada SDN TV magaalada Bergen